waxay la magac baxnay ilaahi ii bari qisadina waate qisadu way dheer tahay waase soo aroorin doonaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala isuga hadda saaka xogaa نبي الله موسى عفوا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إيحاسكيسي غالية هي سارة أيا وحي كسو أنببحين أما أي كسو تغين ودن كان لو يقان فلسطين بيت المقدس أيا أسي السعودة ودن كمصر مصر waxaa haystay nin boqora oo dhaalim ah oo xadgudub badan oo gardarro badan gabar kasta oo qurux badanna qaata dhaqanka ayaa Masar ka jira boqorkaasaana jooga hal mar uu cafin karaa qofka haddii la yiraahdo ninka iyo xaaskiisa isla socdo waa walaalaanahay haddii la yiraahdo laakiin xaas uu ka qaadanaya saa ay tahay saara muuse cafiin nabiyullaahi ibraahim iyo saara waxay ku soo dardaarmeen oo isku soo tala siiyeen hadduu dhibkaana qabsado waxaad ku dhahdaa waa walaalaanahay ku dheh نبي الله إبراهيم وحوي لها ولا نهايو فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك مسلم لغينيا وهذا وددا مريا on aniga iyo adiga ahayna ma garanayo marka muslimiin ayaan islaamka aanu kunna mar alla markay xuduudi Masar soo galeen ciidamadii baa gacanta ku dhigay markiiba gudahay u dhaadhiciyeen ayagoo ku dhawaaqayo dhahaya gabadhani gabadh lamida weli maanan arkin gabadh ka qurux badan weli nama soo marin gabadhani boqorka cidaan ahayn kuma haboono hadda waa boqorkii gabadh kasta qaadan jiray gudaha loo dhaadhiciyo gabadhii baa boqorkii gacanta laga geliyay أحبك في الله سوى عن أدقيست قصة عن ياب كله وقصة الدروس أي كترتوي عن كيرين دروستي عن هداي صومرني حلقة دي طبنات وحاربا إن عنده أم أنجاره مر الله مركي جوري لو جليي أيو سيدي عادة أو أهيد قعنت قبل لا هذي كدبنا وحيتري إلهيو أضاء غفرا إلهيو هدان شركة إلاليي أنيقو أو حرأة أنيقو أو لغايا إلان وحوال بسامين كرو هدان شركة إلاليي أون حمانتك إلاليي إلهيو مانت أون تبر درهي إله ظالم كان إلالي نعم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة قرت البرواقي سنتهي مركز إلهي سنة أعابده محرماتك سنة أتكفقاته مركز أبا هنتهيبو الله كعاونا إياه في حالة شدة سيد النبي الله إبراهيم مركز دبك الله توريبا إلهي أضبك أدمي قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم سيد النبي يونس مركي وحوتك إيو نبيري اللقي على وش النحن إذا أسوه كتر أويلي انتو إلهي بري سبحانه وتعالى وإلهي كسو صاري قفك مؤمن كأه حقا مؤمن كأه حالد داي أرنتو أضكتها إلهي بأقرقاله سبحانه جل وعلا إلهي هنا حفظي وهنا إلاليو كل جن ددن ببضن أيام النهاي قصده حقيقة سعوتاه مر الله مركي وقعنت وتاجو دعاء أرضي سقعنتي وقل الشيء
labadii gacmoodba way qallaleen ilaa uu dhulka ku dhacay. allahu akbar. waa ninkii boqorka ahaa, waa ninkii dhaalimka ahaa, waa ninkii mujrimka ahaa, doonayay gabadhan muslimadda inuu ku xadgudbo. gabadh uu nabi qabo ma dhicin jirkeeda in la taabtay, xumaan lagu sameeyey weligeed ma dhicin. xataa nabiyullaahi luut iyo nabiyullaahi luut iyo nabiyullaahi nuux haweenkoodii oo gaalo ahaa ma dhicin xataa inay zinaystaan. fakhaanataahuma marka la leeyahay waa khayaanada xagga dacwada iyo khayrka ay jawaasiisnimo ay gudbin jireen bay ahayd, laakiin inay zinaysteen ma dhicin. hooyadan caaisha markii munaafiqiintu ceebeeyeenna waa kii ilaahay subxaanahu wa tacaala min fawqi 7 samaawaad uu ka soo bari yeelay. marka haweenay nabi uu qabo inay zinaysato qad weligeed ma dhicin. walidaalika ayaa gacantiiba ayaa qallashay, dhulku ku dhacay. waana meesha aan cinwaanka aan u doorannay ilaahay ii bari. ka warran ninkii gaalka ahaa ee dhaalimka ahaa ee mujrimka ahaa ayaa gabadh yar oo qol uu gashaday intuu dhulka ku dhacay ayadoon taabanin uu leeyahay ilaahay ii bari. laakiin yaa tura tolow gaal balan ma leeyahay? akiid qur'aanku saasuu tilmaamayaa ma lahan, xaqiiqaduna waa noocaa. mar alla markay ilaahay u bariday oo ay ka baqday inuu ku dhinto ayuu haddana mar labaad gacantii la soo aaday. se sidii oo kalaa dhacday. wuxuu yidhi ilaahay ii bari. mar saddexaad buu haddana la soo aaday. wuxuu yidhi ilaahay ii bari. 3 arrimood markay dhacday, markii dambe wuxuu yidhi ma taqaanaan, wuxuu yidhi waxaad ii keenteen shaytaan, imaydan keenin qof bini aadama. war qof bini aadama waxaan wax lamida weligay ma arkin. nacam, waa qof ilaahay la jiro subxaanahu wa tacaala. markaasuu yidhi iga bixiya, shaytaanad baad ii keenteena iga bixiya. waxaadna hadiyad u siisaan gabadha la yidhaahdo haajar ama aajar. gabadhaa hadiyad u siiya. garta hadda gabadhaa qiso kalaan kaga sheekayn doona haddii aan la yidhaahdo. qisada hadda halkaasaan ku joojinayaa. waa tuma haajar, sii ogow waa ismaaciil hooyadii. nabiyullaahi ismaaciil gabadha dhali doonta barakadaas ayay ku timid. barakada iyo dhowrsoonaanta gabadha la yidhahda saara, dhowrsoonaanteedii iyo cifadeedii ay jirkeeda xumaanta ka ilaalisay ee ilaahay u ilaaliyey, barakadeedii baa lagu soo siiyey haajar. haajarna ismaaciil bay dhashay. ismaaciil iyo nabi ibraahimna waad ogtahayba waa labada nabi ee xajka lagaga daydo ilaa yawmi alqiyaama. as'alu allaha tabaaraka wa tacaala, ilaahay waxaan ka baryaa inuu kelimada uu nagu anfaco. uxibukum fillaah, ilaahay daraaddii baan idin jeclahay. intaanu kaga kulmayno xalaqada 12aad waxaan idinkaga tegayaa uxibukum fillaah. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.